calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada janalkii gaarka Zakariya Cabdi Maalal buu daafaca caalamka joogtiin sidoo kalena kusoo dhawaada xubinteeni ahayd fanka caalamka maxaa ka cusub ama arrimaha Bollywoodka maxaa ugu waaweyn hadalaynta Bollywoodka taagan ayaa guda geli doona ay dhammaan gudaha Hindiya mega star Salman Khan iyo Katrina Kaif waxay haatan xayisiin ballaaran ku wadaan filimkooda Farad oo 5 bisha June tiyaatarada la saari doono haddaba Salman Khan iyo Katrina waxay tagayaan barnaamijyo kasta iyo sidoo kale madal kasta si ay filimkooda hadalhayn xooggan uga abuuraan sidaa darteed waxaa dhacday in Salman Khan iyo sidoo kale Katrina Kaif warbaahinta su'aalo ay weydiisay sidii ay su'aalo uga jawaabayeen ugu dambeyntii Katrina Kaif ayaa Salman Khan ku keentay waxayna tiraahday Salman waxa ogtay dhawaan in aniga Instagram-ka ku soo biiray wali kuma arkin adigoo follow igu ah ama waxyaabaha aan soo dhigo comment ka bixinayo ama ka helayo warbaahintii dabcan hadalkii Katrina ayay ka heleen Salman ayay ku camirteen waxay dhaheen Salman maxaa diiday atirashada aadka kugu dhow saaxiibka kule aflaan badanna isla sameysteen dabcan inaa barteeda Instagram-ka ka warqabtid Salman indhaha ayuu taagtaagay laakiin waa shakhsi xariif ah wuxuu yiraahday ama isku furdaamiyay iska badaaya Instagram-keeda inaan Katrina Kaif ka warqabo waxaan sameeyaa meel walbo ee nolosheeda tagta aniga ayaan ka warhayo waxaan idin xaqiijin karaa xitaa hadda markii aan baxno inaan aniga gurigeeda ku geyn doono gaarigeyga sidaa darteed waxa weyn ma Instagram-ka inaan kula socon waayo ee waxa ka weyn nolosheeda idin meel walba ee lugta dhigtay inaan la socdo hadalkaas waxay warbaahinta Hindiya u fasirteen in Salman Khan Katrina Kaif aad isugu dhow yihiin sidoo kalena ay macquul tahay xiriirkii xilli ka dhaxeyn jiray almost 10 sano ka hor inuu dib u soo laaban rabo laakiin Khan waa mid kaftan badan ee lama ogaan karo waxa uu damacsan yahay waa 53 jir aan wali guursanin Katrina Kaifna sidoo kale aydan dhowr iyo 30 sano ay jirtaa wali ma aysan guursan xidigtan waxa la weydiiyay xilliga ay guursan doonto waxay tiraahday waxaan jeclaan lahaa sanadkan 2019 lamaadkiisa inaan guursado maadaama aan muddo dheer soo ahay kali Salman Khan wuu kaftamo wuxuu yiraahday Katrina Kaif 2019 ma dheere ogow markaasay waxay tiraahday waa sax ma dheero laakiin waxa macquul qofkii aan guursan lahaa adiga baa ogtahay kadib meeshii waxa ka dhacay qosol iyo kaftan oo loo fahmay in Salman Khan iyo Katrina Kaif aan bal qiyaasi karin xiriir inuu ka dhaxeeyo iyo inay warbaahinta weerarinayaan balse fahamka guud ee meesha ka soo baxa waxay tahay Salman iyo Katrina laba qof oo isaga dhow ma jirto maadaama ay kaftanka isku tutureen oo ah mid ay ka muuqato in labadan ay yihiin laba jilaa oo aad iyo aad isku fahansan bal aan sii fiirno lamaanayaasha nolosha Arjun Kapoor iyo Malaika Arora Khan bari dhaweyd waxaa la sheegay labadan inay kala guureen laakiin sheekadaas wax ka jira ma lahan wiilkan dhalantii yar ee 34 jirka ah iyo sidoo kale Malaika Arora Khan oo 45 sano ku sii dhow waxaa hore loo ogaa bilowgii sanadkan xiriir fiican inuu ka dhaxeeyo haddaba waxaa la arkay Arjun Kapoor iyo Malaika Arora Khan oo waqti wada qaadanaya kadib markii ay filimkiisa Arjun Kapoor India's Most Wanted isla soo daawadeen waxaa xigtay inay tageen meel hotel ah oo ay waqti ku wada qaateen sidoo kale maqaayad ay tageen waxaa xigta kadib inuu soo wada Arjun Kapoor xilli dambe Malaika Arora Khan wuxuuna geeyay gurigeeda waxaa la sheegay ilaa waqtiga dambe xaaladii inuu ku gaaray 3 habeenimo inuu ku gaaray guriga ay ka degantahay magaalada Mumbai xaafadda Juhi Malaika Arora Khan Arjun Kapoor sidoo kale dhawaan wuxuu iska beeniyay wararka sheegaya inuu Malaika guursan doono laakiin wuxuu yiraahdo waxaan uu yiraahdo qof u baahan nolol inuu sameysto waxaa laga fahmay hadalka Arjun Kapoor in asiga iyo Malaika aad isugu soo dhawaanayaan waxaan la rajeynayaa dhawaan in la shaqeybsadaan ama ay isguursadaan wiilkan Arjun Kapoor waxa adeer u ah Anil Kapoor halka dabcan uu dhalay soo saaraha caanka ee Bonnie Kapoor waana mid kamid ah toorayaasha Bollywood ugu caansan haatan waxay u noqotay arrin iska caadi ah xilli walba inuu banaanka soo dhigo xiriirka kala dhaxeeyo gabadha lagu magacaabo Malaika Arora Khan oo ay kala tageen jilaaga Arbaz Khan oo ay muddo 18 sano isqabeen wiilna uu dhashay lagu magacaabo Arhan kaasi oo haatan 14 jir ah marka Malaika oo single mother waxay dabcan isguursan rabaan Arjun Kapoor oo aan wali guursanin hadalhaynta ugu weyn Bollywoodka aan ka weecin arrimahaas oo dhan waxay noqotay ciwaan Sanjay Dutt miyaa diinta islaamka qaatay ama muslimay waxay noqotay war loo kala harin oo baraha bulshada qabsaday trending aan caadi ahayn sameynay haddaba maxaa keenay in sidaas la dhaho waxaa keenay muuqaalada idin muuqdaan Sanjay Dutt ayaa waxaa dabcan baraha bulshada laga soo bandhigay sawir asagoo wata koofida lagu yaqaan sunnada ee dadka muslimiinta qaataan sidoo kale garkaan weyn dhawaanahan buu lahay kadibna waxaa hor yaal raashin cunno ayaa horyaalo sidoo kalena sawirka gadaale waxaa ku dhagan Kacbadi ayaa ku dhagan ama Makka ayaa ku dhagan sidaa darteed waxaa la soo qoray maasha Allah waa alla mahadiis Sanjay Dutt oo qaatay diinta islaamka waxaan leenahay Allah xafido walaalkeen sidoo kale tan waan ku soo dhaweynaynaa diinta islaamka sidoo kale waxaa la dhahay walaalkeen wuu sooman yahay soonka Allah ka aqbalo wuxuu u fadhiyaa xilligii uu afur lahaay Ramadan Kareem Sanjay Dutt waxay noqotay qoraallo Facebook iyo Twitter iyo Instagram ka sawiradan aad lagu faafiyo laakiin ugu dambeyntii waa laga daba tagay oo xaqiiqo ma ahan ee wax la sameeyay waa ama qaab Photoshop lagu sameeyay sida caadiga ah sawirka hore dabcan waxaa
muuqato sandeeduud oo wata koofida sunnada raashin agyaalin sidoo kale tan gadaal ay coverkiisa uga dhagan yihiin kacbadi laakiin sawirka labaad si fiican u eg xaqiiqada ogaanaysa sandeeduud garka wuu leeyahay madaxana wuu u xiran yahay wuxuu fadhiyaa kursi miiska hortiisa yaalna wax cunno ma yaalaan sidoo kale gadaashiisana maba ku dhagnabo kacbada kuma dhagno waxaa ku dhagan dhalo weyn oo ciyaare ka socota ayaa gadaashiisa ku dhagan marka waa sawir photoshop lagu sameeyey laakiin dad badan ayaa lagu qalday sandeeduudna waxaa la diinta islaamka ayuu qaatay laakiin waxba kama jiro warkaaso ninkan waa nin hinduu madaxana wuxuu u xirtay filim wuxuu jilayaa aflaanta uu soo waday shamsheera iyo banibaad iyo sadak two ayuu ku matalayaa nin madax xiiran oo garweyn leh maadaama uu ku matalaya doorar adag aflaanta sidaa darteed hadalhayntii ahayd sandeeduud diinta islaamka ayuu qaatay waxay noqotay mid aan waxba ka jirin twitterka dadka lagu wareeriyay baryahan waxay noqotay social media meel ummadda lagu wareeriya noqotay dad badan ayaa baran u qaateen sandeeduud inuu dabcan inuu diinta islaamka soo galay waxay ahaan lahayd arrin aada lagu farxo laakiin xaqiiqada ma ahan sida haatan muuqato waa laga daba tegay sheekadaas duudkaana dabcan diinta islaamka ma uusan qaadan waa nin hinduu arjun rambal oo ay soomaalida u taqaana gorof waa dabcan atoore caan oo bilowgii qarnigan bollywoodka soo galay xaaskiisii hore ayay kala tageen maleka jessica waxaana la xaqiijiyey inay muddo 18 sano ka badan isqabeen ugu dambeyntii ay kala tageen arjun waxay xaaskiisii hore ku eedeysay dabcan inuu dabcan sameeyey xiriiro qaldan ama xiriiro hoose oo xitaa lagu eedeeyay inuu xiriir la lahay Susana Khan ama Susana Roshan gabadhii hore ee Hrithik Roshan ilmaha u dhashay ay kala tageen wax allaale wixii soo jiitamo sanadkii hore ay Arjun Kapoor Arjun Rambal ay xaaskiisii kala tageen dhawaana ninkan wuxuu bartay gabar lagu magacaabo Gabriela oo dabcan saaxiib ay noqdeen haatan uur ay leedahay oo dhawaan way dhali doontaa haddaba warbaahinta dabcan hinduuga waxay leeyihiin Arjun Rambal iyo xaaskiisii hore kala tageen sidoo kalena ahaanin isla weyn markaan waxa gacanta ku dhigtay Gabriela xitaa wuu u soo adeegaya adeeg asiga gacanta ugu qaadayo waqtigiis dhanna Gabriela ayuu galiyay meelna kama aado waxay leeyihiin marka malaha Gabriela Arjun ninka lagu magacaabo Arjun Rambal maxay u sheegtay ama Gorof dalxiis ayuu gabadha mar walba geeyaa Maldives ayuu dhawaana geeyay meelo kala duwan oo lagu dalxiisa ayuu geeyaa asiga ayaa u adeego laakiin markii ay kala tagayeen Meher Jesse xaaskiisii hore carruurta u dhashay waxaa la sheegay marnaba waqti badan inuusan siinin waxaa meesha ka muuqata marka Arjun Rambal in haatan aad u danaynayo Gabriela uun rabo nolol cusub inuu abuurto laakiin warbaahinta Hindi waxay leeyihiin ninkii xaaskiisii hore ku caasiyay markaan wuxuu koolkoolanayaa gabadhan cusub Bobby Doll atooraha lagu magacaabo reer Doll Dramandar wiilkiisa asigana wuxuu ka hadlay walaalkiisa Sunny Doll guusha lixaad leh uu gaaray ama election victory-ga Sunny Doll ayaa in ka badan 80,000 oo qofood u codeysay deegaanka Gurdaspur ee ka tirsan gobolka Punjab wuxuuna noqday haatan xildhibaan qaran oo Hindiya matali doona aqalka kuraasta Hindiya soo fariisan doona waliba wuxuu la guuleystay xisbiga BJP ee talada Hindiya hayo Bobby Doll aad u farxsan walaalkiisa wuxuu yiraahday aad baan ugu faanaya Vayi walaalkayga guusha uu gaaray wax ka weyn ma jirto inaan guushan gaarnay Sunny Doll oo dabcan dadkiisa dhaxgal la soo doortay waxay ka dhigantahay annaga oo dadkeena dhaxgalnay sidoo kale nala doortay tani waxay muujinaysaa reer Doll sida u yihiin dad daacad ah oo aad loo jecel yahay Hindiya ha noolaato ayuu dabcan Bobby Doll yiraahday waxaana muuqata Bobby Doll inuu aad ugu faraxsan yahay walaalkiisa Sunny Doll guusha uu gaaray qoraalka ama muuqaalka sawirka idin muuqdo ayuuna bartiisa Instagram-ka soo dhigay walaalkiis dabcan ugu hambalyanay gabadha lagu magacaabo Alia Bhatt oo dabcan u dhalay film sameeyay caanka ah Mahesh Bhatt ayaa loo doortay gabadha ugu soo jiidashada badan Hindiya 2018 daraasada oo ay sameysay wargeyska caanka ee The Times of India ayaa waxay soo xuleen konton haween oo dabcan loogu magac daray kontonka haween ee ugu soo jiidashada badan gudaha Hindiya waxaana kaalinta koowaad ka gashay Alia Bhatt oo 26 jir ah sanadkii hore waxay sameysay filimkii Razi aadka lagu amaanay kuna qaadatay abaalmarinta Filmfare Awards haddaba Alia Bhatt oo loo doortay gabadha ugu soo jiidashada badan gudaha Hindiya ayaa u mahad celisay kumanaanka kun ee qofood ee codkooda ku dhiibteen wargeyska The Times of India waxay tiraahdaa tani waa abaalmarin iga weyn in lagu tilmaamo qofka ugu soo jiidashada badan ama loogu jecel yahay gudaha Hindiya dhanka hablaha balse waan aqbalayaa waxaan u mahad celinayaa taageerayaasheeda iyo qof kasta oo ii codeeyay waxaan ahay shakhsi celebrity ama caan oo Bollywood ka tirsan waxaan jecelahay dadka inay igu daydaan sidaa darteed haddii aan noqdo qofka ugu soo jiidashada badan ama loogu jecel yahay Hindiya ka dhaxeeyo waxay igelinaysaa dhiirigelin dheeraad ah in shaqadeeda laga helay shaqadeeda ayaan sii wadan doonaa ayay xidigtan ka dhawaajisay waana arrin kaleeto oo xiiso badan dabcan in dadka Hindiya ay u arkaan Alia Bhatt qofka lagu jecel yahay dhanka hablaha codeynta ay ka dhiibteen The Times ayaan xidigtan loogu codeeyay sheekooyinkan idin heeno faanol fari kama qodno ee arrimaha ku saabsan Bollywoodka ama fanka iyo caalamka maxaa ka cusub bal markaan aan fiirino qodob kaleeto oo xiiso badan oo si gaar ah u taabanaya arrimaha box office ka jiro gaar ahaan filimkii ahay DD Day Bad Day Ajay Devgan hogaamiyaha ka ahay filimkan guul lixaad ayuu gaaray
toddobaad ayuu dabcan soo xareeyay lacagta 57 karoor sida shabakada box office India ee shaaca ka qaaday. Didier Biyardene waxaa laga rabaa toddobaadkiisii labaad inuusan hoos u dhac sameynin, waxayna u badan tahay filimkan Ajay Devgan hogaamiyaha ka yahay inuu hiid dhammaystiran noqon doono, waana mashruuc hirgale oo sheekadiisa laga helay. Ajay Devgan hambali ayaan leenahay, waxaa muuqata sanadkan 6 bilood ugu horeyso laba filim inay hiid dhammaystiran u noqdeen. Hore waxaa ugu noqotay Total Dhamaal, markaana waxaa u noqon raba Didier Biyardene. laakiin wiilka dhalinteeda Tiger Shroff ayaa dabcan guuldaro la kulmay filimkiisa Student of the Year 2 ayaa laba toddobaad ganacsiga uu sameeyay waxay ka dhigtay mashruucan inuu guul dareystay. toddobaadkiisii labaad wuxuu keenay 10 karoor, wadarta guudna wuxuu haatan marayaa 64 karoor. filimkan waxaa ku adkaan doonta 70 karoor inuu gaaro cimri ahaantiisa. Karan Johar ayaa soo saare ka ah, waana mashruuc guul dareystay oo below average ah, ama 20% ayuu lumiyay lacagtii lagu qarash garay. micnaha waa filim ganacsigiisa ma xumo, laakiin 20% ayaa ka luntay lacagta la geliyay. Flop ma ahan, wuuna ka hooseeyaa, flopna wuu ka sareeyaa, waa below average. film markii la dhaho flop waxaa loola jeedaa almost 40% ama 50% lumiye. below average markii la dhaho 20% ee lacagtiisa lumiye. laakiin muhiimadda waxay tahay Tiger Shroff inuu film below average keenayo guul dareysta lagama filayn, ee waxaa laga filaya ugu yaraan film weyn oo superhit inuu sameyn doono, maadaama filimkiisii ugu dambeeyay Student of the Year uu guul filimkiisii ugu dambeeyay Irade Bagi uu guul lixaad la gaaray, Bagi 2 kaasi oo sanadkii hore la daawaday, sidoo kalena ahaa mashruuc weyn oo blockbuster noqday. intuu ku dambeeyay filimkii weynaa Avengers Endgame ee Hollywood ka ahay, filimkan waa mid aan hakanayn. gudaha Hindi muddo 4 toddobaad wuxuu ka soo xareeyay 364 karoor, waana filim ganacsigiis aad u sareeyo. 370 karoor inuu ku istaagi doono u badan tahay gudaha Hindiya, waana lacag aad iyo aad u fara badan. bal aan fiirino USA box office halkuu ka maraya filimkan. 779 milyan ayuu gudaha USA box office ka keenay, wuxuuna ku socdaa toddobaadkiisii shanaad inuu gaaro 800 milyan oo US dollar gudaha Mareykanka inuu ka keeno. daafaca caalamkan wuxuu ka soo xareeyay 1.84 bilyan, taasi oo ka dhigan Avengers Endgame wadarta guud ganacsigiisa gudaha Mareykanka iyo suuqyada caalamka markii la isku daro inuu soo xareeyay 2.62 bilyan. waa worldwide gross, wuxuu dhaafay filimkii Titanic ee hirgalay kaasi oo 2.18 bilyan keenay, halka filimkii uu higsanaya inuu soo qabtay ay Avatar kaasi oo 2.78 bilyan keenay. daawadaasha qiimaha badan arrimaha fanka maxaa ka cusub intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. fadlan haddii uu jiro qodob aad ka heshay dabcan comment ka dhiibo. haddii aad channelka ku cusub tahana subscribe saar. mar walba waxaa inoo madal xog xaqiiqa. waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi